Assalaamu calaykum. Waa idin salaamo ugu horaan. Riyo walba rumudo waxay leedahay qiso walba rumudana waxay leedahay riyo. Taa micnaheedu waxaan la jeedaa riyada maanta rumuday waxaa suurtageliyay Ilaahay. Alla ka sokoona waxaa mahad iskale qurba joogta. Waxaan ka hadlayo waa isbitaalka Fido oo maraya qayb gabagaba ah. Runtii wuxuu anfici doonaa bulsho badan oo u baahi qabeen. Bulsho badan oo degan agagaarka Fido iyo inta ku hareeraysanba. Runtii waxaa dhacdooyin aad u xanuun badan oo dadka ku reebeyso tiraanyo sababtoo ah dumarkeena ama odayaasheena waxay u dhintaan caafimaad darro ayagoon haysanin goob caafimaad ay tagaan. Tusaale dumarka uurka leh haddii ay dhiigbax ku soo boodo ma helaan isbitaal degdeg ah oo loo geey kareeto. Taana waxay sababaysaa inuu meeshaasi ku nafbaxa qofkaasi oo helin daryeel caafimaad. Taa iyadoo laga duulayo qurba joogtu waxay go'aansadeen in ay aasaasaan fikir ah in ay dhisaan isbitaal. Run ahaantii maanta wuxuu marayaa qayb gabagaba ah. Cid walba waxaa saaran mas'uuliyad. Maanta waxaa qormi doona taariikhdaasna waxay xusi doontaa ciddii isku qorta. Runtii waxaan leeyahay bulshadeena kuma yara lacag iyo maalba, laakiin waxaa muhiim ah qofku Ilaahay waafajiyo. Fadlan u heeli walaasha dhibaataysan, walaalka dhibaataysan iyo aabaha dhibaataysan una baahan daryeel caafimaad inuu helo. Haddii walaalka iyo walaasha daryeel caafimaad ay haystaan, kuwa kale ayaan haysan daryeel caafimaad. Fadlan ka qayb qaado adigoo eegaya dhibaatada halka ka jirta iyo baahida loo qabo. Fadlan hadda wuxuu marayaa qaybihii u dambeeyay. Taariikhdana qormeysana waana qaybtii ugu dambeysay. Adiga ayaa isku qori doona, adiga ayaana iska tiri karo. Aad ayaad u mahadsantihiinba. Kuma